دكتور محمد علي فارح marka uu noo waxa weeye aabe ka duwan aabayaasha kale wasiirada kale waxa uu si waxa weeye asbuucla ama sanadla noogu soo booqan jiray waddanka Suudaan waan uga mahadcelinaynaa waxa weeye haddii aan ku magacdabo jagadiisa wasiirnimo waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada tacliinta sare ee maamulka Puntland ama dowladda Puntland ee Soomaaliya waxaan salaamayaa isagana isla DG-ga wasaaradda Maxamed Abdelqaadir Cusmaan oo ah waxa weeye agaasimaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxaan kaloo salaamayaa agaasinkii hore ee wasaaradda la dagaalanka burcadbadeedka Puntland ahaan asaasihii barnaamijka la dagaalanka burcadbadeedka ee Soomaaliya oo dhan mudane Cabdirasaaq Maxamed Dirir Ducaysan waxaan kaloo salaamayaa madaxa isku xidhka waxbarashada wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Deeq Hurre waxaan kaloo salaamayaa maamooyinka quruxda badan ee horteeda fadhiya iyo waxa weeye kuwa ila simanba waxaan iyagana salaamayaa agaasimayaasha iyo madaxda ka midka ah dadkii ka faa'iideystay waqtigaas qayinka ee aynu caawa u taaganahay shakhsigii ka dambeeyay inaynu xusnay Cabdi Faarax Juxa ahaa agaasimayaasha iyo isugu jira waxa weeye dhammaan noocyada kala duwan ee cilmiga hadday ahaan lahaayeen doctors hadday ahaan lahaayeen muhandisiin ama engineering hadday ahaan lahaayeen waxa weeye social workers oo dadka bulshada ka soo dhalaalay si khaas ah waxaan u salaamayaa dufcadayadii aanu isku waqtiga ahayn ee la kowsaday maamulkii cusbaa ee uu hogaaminayay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole ahaana shakhsigiina baray noona keenay wasiirka Cabdi Faarax Juxa labadaba mahadcelin ayaan hawada u marinayaa shakhsiga marka intaas ee wanaaga keenay caawanana kulan siiyey aynu mudannahay waxa weeye inaynu feedbackiisii inaynu muujino positive feedbackii aynu isaga ka helnay sida shakhsiga ah kumuu ahaa maxaynu ka naqaanaa taariikhdiisa waa kuma waa wasiir Cabdi Faarax Juxa Cabdi Faarax Siciid Juxa taariikh nololeedkiisa oo kooban intii waxa weeye uu rabbiga xasuusiyey ama aan waxa weeye xeelerayaasha igaga dhow aan ka soo helay waxa ay tibaaxaysaa sida tan taariikh nololeedka Cabdi Faarax Siciid Juxa waxa uu ku dhashay gobolka Nugaal waxa uu waxbarashadiisa hoose dhexe iyo saraba ku qaatay isla gobolka Nugaal oo ku dhashay waxa uu waxbarashadiisa heerka koowaad ee jaamacadda iyo heerka labaad ee jaamacadeedna uu ku qaatay waddanka Czech Republic aynu wada garanayno waxa uu ka mid noqday dadka ka shaqeeya arrimaha community-ga ee waddanka Canada oo uu ka ahaa oo uu ku lahaa baa leeyahay idaacad la magac baxday halkan oo bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Canada arrimaha bulshada ku wacyigelin jirtay inta problem bulshada uu la noolaa oo xalliyay iyo saamaynta togan ee uu ku yeeshay bulshada markaas uu la noolaa waxaan oran karayaa in maanta aan inteenaasi iyada oo uu iclaanka ama xayeysiinta aad u yarayd aynu u soo degdegno nimaano u soo labisano u soo banbaxno xafladda aan ku taageerayno ama aanu ku xusayno Cabdi Faarax Siciid Juxa in ay tahay xusuus uu qulubteena ku reebay waxa xusaya haddii aan idin bayaaniyo waa ardaydii heshay scholarshipska muddadii uu xilka hayay Cabdi Faarax Siciid Juxa oo ku ahayd 2009 ilaa iyo 2014 runtii muddadaas inta tagtay waxaa ka muhiimsan bilowga barakaysan uu sameeyey Cabdi Faarax Siciid oo ah in uu jeexay jid ay maraan cid kastoo isaga ka dambaysaa waxaa intii isagu uu joogay deeq waxbarasho bannaanka u aaday wadamo kala duwan ay ka mid tahay Yemen, Ethiopia, Allahumma Sudan, China oo si teelteena loo helo iyo wadamo kale oo badan xilliga Raashka uu ka mid ahaa oo si wax loo yahay aan garanayn 3,000 oo arday baa ka faa'iideystay sida number 3,000 oo arday baa ka faa'iideystay muddo yar gudaheed taasina waxay ku tusinaysaa qofka mas'uulka ah haddii uu la yimaado hufnaan daacadnimo dad jacayl iyo dal jacayl in wax badan oo la taaban kara la qaban karo Cabdi Faarax Siciid Juxa wuxuu ahaa wasiirka waxbarashada ee Puntland maantana waa wasiirka
arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya shalay haddii uu ahaa Puntland waxa fiican qof markastaba meesha uu joogo mas'uuliyaddeeda uu ka soo dhalaalo uu ka soo dhaalay Puntland maantana Soomaali weyn oo dhan buu madax u yahay insha Allah biidhnillah waxaan rajaynayaa xilku waa meerto maalinka uu sidaan oo kale uga tago in dhalinyarada Soomaaliyeed ay xusi doonaan waxqabadka uu ka tago wasiirkii hore iyo wasiirka haatan Cabdi Faarax Saciid Juxa xilligii anagu halkan aan ka tegaynay waxyaalaha ku noolaa waxa ka mid ahaa anigoo dhalinyaro ah inaan mataqaanaayay ahami waxbarasho uu igu jiray rajadeeda wax gacan qabad aysan boqolkiiba boqol buurnayn xafladeedii qalinjabinta inaan xusuusaha aan leeyahay waxa ka mid ah ka hor qaadi jiray dhalintii Puntland inay dhisaan dhulkooda ku dhaantay baan nahay run ahaantii waxaan ku naaloo jirnay aan kalsoonayn in waxqabadkiisu la soo gaari doono waanu nahaynaa waanu naasibnay qofka wadaniyadiisa waxyaalaha lagu garto waxaa ka mid ah waxaan arkay Cabdi Faarax Saciid YouTube-ka anoo seef garaynaya gabay daqiiqadii wax la mid soconayo uu leeyahay waxaan isiri waa gabiyaa laakiin afkiisa waxaan ka helay inuusan ahayn gabiyaa laakiin si lama filaan ah ay ugu soo degtay tixdan aad u xoogan oo aanan halkan kusoo koobi karin u jeedinayaa wasiir Cabdi Faarax Saciid Juxa anigoo ugu ducaynaya xilkaas iyo mas'uuliyaddaas xilka la iskuguma hambalyeeye waa la isku duceeyaa xil culus xil waa wax culus kolay Soomaalidu way jeceshahay laakiin xilka wuxuu yahay waa garanaysaan waa wax culus marka inteenaasoo dhalinyaro ah oo ka faa'iidaystay waqtigiisii haddaan u ducayno inuu wax badan qabto waa ilaahay ka rajaynaynaa Juxa productigiisii inayna ahayn injineero wiilal ah inayna ahayn dhakhaatiir wiilal ah kaliya inay ku jireen gabdho soo dadaalay gobollo badan oo wadanka ka baxsan wax ka soo bartay ayna isla markaasna muujiyeen waxbarashadooda inay yacnihii ka mid dhaliyaan hadeerna ay ka mid yihiin shaqaalaha dawladda hay'adaha meel kasta ay ku jiraan marka wasiir Juxa waxaan leeyahay waan ku ducaynaynaa anoo ku hadlaya magaca gabdhaha kana mid ah dadkii wax ka soo bartay dalka Itoobiya Ifraax Cabdulaahi Faarax iyo dumarka tartan inay ku jiraan tartankaas oo ah tartanka aqoonta annagu hadda tartan baa aynu kula jirnaa madaxdayadii aan ahayn iyo gabdhaha mustaqbalka bari ka maalina bedelaya oo aqoon-yahanka ah haddaan maslaxa laga sheegin waxaan u malanayaa colaad inay jirto ragga iyo dumarka laakiin xaawiya aadanba dad isjecel bay ahaayeen oo aynu ka tarannay inaynu saa isu jeclaano baan jeclaan lahayn aqoontana aanu kala dambayno ugu horeyn waxaan salaamaya horta dhammaan idinkoo dhan waan salaamaya gabdhaha sharafta leh waa salaamaya saxaafadda qaaliga oo mar walba danaha bulshada u taagan waan salaamayaa nurwooyinka sharafta leh ayaan oo maansooto u fadhida gabdhaha Puntland oo wax badan aanu ka aragnay waxtarkeeda oo qof ditooreysa iyadoo laftigeedu ah Caasho Geelle oo ah gudoomiyaha Burtile oo ururka haweenka Puntland marti sharafta dhamaantiin idinkoo dhan waan salaamaya salaan ka bacdi ilaahay baa mahad leh maanta halkan waxaa lagu xusayaa oo lagu sharfayaa oo ardayda aqoon-yahanka ah oo ka yimid dibadaha kala gedisan iyo dalka gudihiisaba kuwii ka soo baxay jaamacada xafladan sharafta leh ay u sameeyeen walaalkooda wasiirka hadda arrimaha gudaha ah Juxe aad bay sharaf noogu tahay inaan uga soo kala soo qayb galno martiqaadka sharafta leh iyo bogaadinta iyo ammaanta iyo gabayada masar Juxe loo sameeyo waxaan in rabaa inaan in ogeysiiyo marihii dalka baa tihiin oo bari ka maalin Puntland wax tari kara Soomaaliya oo dhan wax tari kara wax ka fiican ma jiro in intaan ay isugu timaado inay ka markaanti kacdo inaad qof fiican ahayd inaad qof daacad ahayd inaad qof hawlkar ahayd inaad qof cadaali ahayd in intaan ka markaanti kacdo wax ka fiican oo dhici kara ma jiraan
anigu waa saaxiibkay waa la shaqeeyey wasiirka weli markuu cusbaa baan la shaqeeyey waxaan ka bartay hal wax baan oran lahaa waxaas haddii shirka markii la filaabo aan sheegi lahaa weynaan fici lahaa laakiin haddana waa sheegayaa dib weynaan fici doonaa muxuu ahaa hadalka in marka waxaan ka shaqayn jirnay waxaan ahay researchers marka waxaan ka shaqayn jirnay dadka in lala hadlo marka hadalka in la soo koobo waqti yar lagu hadlo laguna soo koobo fariintana lagu gudbiyo markaas xoogaa waxaan dareemayaa inkastoo wax farxad badan aynu ka hadlaynay haddana wayna ku dheeraatay oo markaad fiiriso wasiirka oo kale waxaa laga yaabaa inay xoogaa ku lug dheeray marka intaas horta anigu waa ka bartay asaga beenna sheegi maayo waxaan jeclaa idinkuna inaad marka dambe insha allah gabdho iyo wiilal ardayna meesha joogta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hilmaam hadal kuwa jiro saxaafaddana sidoo kale iyana waa salaamayaa intaa kadib kuma aanan tirigelin horta caawa inaan xaflad ka soo qayb galo xilli dambe aan shaqo ka baxay guriga joogaa wasiir ku-xigeenku wuxuu yidhi xaflad cabdi faarax juxa loo sameynayaa laga qaybgelaya waan ka baaqsan kari waayey laakiin arrin aan ku talagalay maan ahayn marka haddii aan dhex galo ulajeedka xafladdan loo sameeyey wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada puntland haddana ah wasiirka arrimaha federaalka iyo arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya iyo dib u heshisiinta runtii waa aabbo weyn oo bahda waxbarashada puntland meelo badan oo hadda waxqabadkiisana la tiriyey sidaasaanu runtii raadkiisa dadkii ka dambeeyay oo meesha uga dambeeyaan nahay intaa aad tiraahdeen waan inagu raacsan nahay iyo wax badan oo ayna sheeginba u hambalyeyn mayo laakiin waxaan ilaahay u baryayaa inuu ilaahay xilka culus oo ummadda soomaaliyeed ee dhibban u ooman qarannimo soomaaliyeed u ooman mar uun inay arkaan qarankii soomaaliya istaagay looga dhigay wasaaraddii ugu muhiimsanayd oo la odhan karo qaranka soomaaliyeed waa laga yegleeli karaa waxaana filayaa wax lagu doortay waa kartidii iyo shaqo wanaaggii uu ka sameeyey wasaaradda waxbarashada ee puntland oo la odhan karo qof wasaaraddaas ka soo shaqeeyey runtii waa loo dhiibi karaa mansabyo kale oo ilaa heer madaxweyne ah ilaahay ha u fududay wasiirka xilkaa weyn oo loo magacaabay markaan intaa uga imaado waxaan u hambalyeynayaa ardayda xafladdan soo agaasintay waxay ahaayeen inay noo sheegaan oo nana wasaar ahaan waa ku dari lahayn xaflad intaan hadduu aad bay u qurux badan tahay xaflad qiimo sare leh weeye wasaaradduna waa kusii dari lahayd oo waxay noqon lahayd wasaaraddii iyo ardaydeedu iyo xaflad si wada jira ugu sameeyey mar haddaan noo yeedheenna wixii ilaahay naga garansiiyaanu ka dhehayna waxyaalaha lagu xasuusto wasiirka waxaa ka mid ah waa ininka meesha halkan jooga waa arrinta ugu weyn productigiisii baa maanta xaflad u qabanaya qiimo ka weyn oo maanta wasiir juxa waxaan filayaa inuu clipkan daawan doono in ardaydii uu u diray scholarshipka ee maanta u mahadnaqayso sida aad sheegteen waa wasiirkii ugu horreeyey dira scholarship waxaan u malaynayaa saamata wasiir okay waxaan ka baqayaa inaan madaxdii ka horreysaan marka haddii 300 oo arday intii uu jaga la diray sanadkii sunnadii uu jideeyey wasiirku dalalka Sudan, Ethiopia, Masar, China, India, Russia iyo wixii wax laga helaba scholarship way naga soo gaaraan waxaan u badan Sudan iyo Ethiopia oo isagu khadka u xiray haddii 4 sano uu joogay ahayd ama 5 sano uu joogay ahayd 300 sanadkii tagay 2016 400 arday atay 400 arday
ayaa waxbarasho Puntland ka helay oo dibad loo diray waxaana la filayaa sanadkanna tiro intaa leeg ama ka sii badan wasaaraddu tirarkii uu taagay ayay hore uga sii socotaa waxaana la oran karaa waa hooyada wasaaradaha Puntland waxaana caddeyn oo ah productiga intaa leeg dalka dadkii bedeli lahaa aftahaniintii halkan taagnaa dhalinyaradii halkan taagnaa waxaan u malaynayaa annaga si gaar inoo taabanida wasaarad ahaan inaan product intaa leeg dalka loo soo saaro wax ka qiimo badan runtii ma jiraan dadkii dalka bedeli lahaa bay wasaaraddu ku howlan tahay inay soo saarto human resource development ku howlanta shaqada intaa leeg waan sanadna dib u laabanayn wasaaraddan waxay ka turjumaysaa in energy u galay qof walba ay mas-uul ah meel baa loogu dhiibaa inuu meeshaas hore uga sii qaado ayay tahay wasiir abshir yuusuf ciise iyo tutoorkuna waxay nagu hogaaminayaan waddadu jeexjeexay iyo meel ka wanaagsan insha allahu raxmaanna waxaan filaynaa mas-uuliyiinta naga dambeeyaay iyana inay intaa iyo wax ka wanaagsan sii sameeyaan wasaaraddan uu cabdi faarax juxa wasiir ka soo noqday iyo ardaydooda dhammaystiran iyo bahda waxbarashada Puntlandba waxaan leenahay wasiir waa ku daba taagannahay ilaahayna ha kuu fududeeyo shaqada ballaaran ee lagu magacaabay waxaan sidoo kale aan u hambaliyeynayaa dhammaan wasiirada golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya la magacaabay in iyana ilaahay xilkooda u fududeeyo sidoo kale wasiirada kale ee ka soo jeeda Puntland oo iyana golaha wasiirada ka qayb galay sidoo kale iyana waan u hambaliyeynayaa dhammaantood mas-uuliyad baa hortaalla howl culus baa hortaalla ilaahay ha u fududeeyo waxaan leeyahay wasiirkii waxayna soo baray oo ina diray maxaa uga abaalgudaysaan duco wax ku dara hada qurux badan laa waxaa la rabaa inaad ugu shaqaysaan si frontier ah bulshada maxay u baahan tahay maanta maxay ugu baahi badan tahay abaaraha dalka ka jira biyo dhaan baa loo baahan yahay inaad lacag urursan baa loo baahan yahay inaad waxaa tari ka dhan bulshada tartan baa loo baahan yahay waa samayseen waana hubaa inaad waxa ururin ka dhaadan ururiseen jaamacadahan la socdaa ku kala baratamayaan jaamacadaha dalku iyo iskuulaadku inay dadkii ummaddii wax taraan qayb ka mid ah ardaydii uu wasiirku u diray deeqda waxbarasho ama wasaaradda waxbarashada ee Puntland ay u dirtay deeqda waxbarasho xilligii uu wasiirka ahaa wasiir cabdi faarax juxa taasi waxay ku tusaysaa caawa inaan halkan lagu maamuusayn ama loogu hambaliyeynayn hab qabiil hab saaxiibtinimo hab maaragtay gaar ah ee ay u hambaliyeynayaan ardaydii uu soo saaray ee uu wax soo baray waan sida la sheegay waa fariin culus oo qof walba oo mas-uula loo dirayo nin walbaana wuxuu ka tago ayuu helayaa sida carabtu tiraahdo kullu inaa'in bimaa fiihi yandax weel walba wixii lagu shubo ayaa ka soo daata run ahaantii wasiir juxa iyo deeqda waxbarasho ee uu ardayda kula dadaalay wixii ka soo baxa caawa waan arag abwaaniin aqoon-yahano gabdho iyo wiilalba aftahanimo iyo aqoon xambaarsan ayaan caawa halkan ku aragnay taasoo ku tusaysa in wixii la geliyay runtii ay ahayd wax aad u weyn isla markaasna wax weyn ay soo saareen dadka rajada laga qabo isbeddelka dalka laga doonayo ama Soomaaliya guud ahaan inay qayb ka noqon doonaan ayay taasina ku tusaysaa waxaan leeyahay marka wasiir juxa iyo wasaaradda waxbarashada iyo Puntland runtii way guuleysteen intaasoo aqoon-yahan markay u soo baxeen oo aan caawa halkan ka garanay qaar ka madihi hal xiraarihii uu wasiirku xiray ee uu yiri yaa loo dhiibi doonaa arrinta Soomaalida oo halka keeni doona in caawa halka kan ardaydiisii ay xiraarihii ka jawaabeen oo ay awaanadu ay tilmaameen in wasiirku uu ka mid yahay dadka loo igmaday inay Soomaaliya badbaadiyaan taasina arrintii iyo su'aashii uu isweydiiyey jawaabteeda hadda laga doonayo
ummadda Soomaaliyeed ay ka sugayso in uu wasiirka oo runtii xaqiiqo culus ama wasaarad aad u culus oo wasaaradda arrimaha gudaha ubuucda dowladnimada dalka in maanta caawa uu arrintaas ka jawaabo isaga iyo golaha wasiirada iyo saaxiibadiis iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waa rajaynaynaa inta aan ka naqaano wasiir Juxa inuu kartideeda leeyahay hogaaminteeda leeyahay aqoonteeda leeyahay hal abuurnimadeeda leeyahay inuu booska loo dhiibay uu ka soo baxo waa rajaynayaa insha Allah ta'ala in sidii uu ugu guuleystay wasaaradda waxbarashada iyo shaqooyinkii kale ee uu dalka ka qabtayba inuu ugu guuleysan doono wasaaradda waxbarashada wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee hadda loo dhiibay xilkeeda wasiirka waa hambalyeynaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala xilka inuu ku guuleeyo asagii saaxiibadiisna waa ugu ducaynaynaa wax badan baa lagu xasuustaa dhalinyarada runtii in badan tilmaamay oo waxba ka tegin raggu soo saaray rag qiimo badan weeye oo awood u leh inay caddeeyaan oo ay cabiraan waxa ay maaragtay rabaan bulshadana deeqsiiyaan waana dadkaan rajaynayna insha allahu tacaala in ay hadda dalka isbedelka bilowday ay wax badan noqon doonaan fursadana la siiyey oo hadda Puntland ay daah furtay Soomaaliyana ay u tahay hormuud xisbiyadii iyo nidaamyadii kala duwanaa ee dimuqraadiyadu ay salka u ahayd runtii wasiir Juxa intii ay sheegeen oo lagu xasuusanayo wax badan ku sii darimay waqtiguna waa waqti dambe usaadkuna waa kii noo tilmaamay inaan soo gaabino wuxuu ahaa Puntland waxbarashadeeda raggii runtii gundhiga u ahaa ee salka u dhigay wasiirkii ka horeeyay oo runtii dadaal badan muujiyay Axmed Saciid Nuur waxa uu wasiirkii ku xigay wasaaradda waxbarashada udubada iyo maxaan ku yiraahdaa asalka u dhigay buu ahaa wuxuu ahaa wasiir Juxa ninkii barnaamijka waxbarashada imtixaanaadka centralized-ka ama markaziga ama shahaadiga raggii run ahaantii toosiyey buu ahaa imtixaankaas wuxuu bilowday 2003 laakiin ciddii midaysay oo ka dhigtay imtixaan macno leh waxay ahayd wasiir Juxa ilaahay ha u fududeeyo hawsheeda wuxuu kale wasiirku macruuf ku ahaa runtii sida la sheegay manhajka waxbarashada raggii isku keenay 2009 iyadoo oo runtii manaahijtu ay kala duwanayd waliba gaar ahaan dugsiga sare ayuu ahaa wasiir Juxa anuu xilligaas waxaan ahaa gudoomiyaha dalada waxbarashada jaamacadda Boosaaso waa joogay run ahaantii waxaan ka wada shaqaynay markii imtixaankii la mideeyay manhajkii in imtixaan midaysan ay galaan dhammaan bahda waxbarashada wuxuu mideeyay systemkii waxbarashada daladihii kala duwanaa iyo madaaristii kala duwanaa kulligood wuxuu keenay hal nidaam oo nidaamka wasaaradda waxbarashada ayuu hoos keenay taasoo runtii xoojisay systemka waxbarashada ee dowladda Puntland guud ahaan waxaan oran karaa waa arrimaha qaybta libaax ka qaatay in lagu dhiirado in la dhameystiro manaahijta waxbarashada ee dugsiyada hoose dugsiyada dhexe kuwa farsamada tacliinta sare la guda galay wax badan ay wasaaradda waxbarashada ku tallaabsato wuxuu kale wasiirku uu udubdhaxaad u ahaa una bilaabay runtii aan oran karaa wax waa ka horeeyeen laakiin isaga asaas u ahaa barnaamijka deeqda waxbarasho oo ardadan caawa ay runtii aad iyo aad wax ugu soo barteen arday fara badanna ay ka faa'iidaysteen barnaamijkaas oo runtii u dhigay nidaam cadaalad ah merit system in ardaygu uu wax ku helo wax uu soo barto walidaalika way ardadu ilaa iyo hadda Puntland nidaamkaas ay ku socdaan madaxweyne Cabdiweli ayaa wuxuu ku daray oo ku soo kordhiyay in qaybta ama saamiga waxoogaa qaybo kale lagu soo daro oo laga dhigo 85% merit ama ardaygu waxbarashadiisa uu ku helo darajadiisa 5% dadka laga tira badbadan yahay la siiyo 10% la siiyo iskuulada meelaha fog ku yaala oo laga yaabo kuwa magaalooyinka waaweyn ku yaala inaysan dhinaca waxbarashada iyo resource-ga kula tartami karin taasna waxa weeye runtii guul cusub bay noqotay iyaduna dad fara badan oo aan markii hore scholarship ka heli jirin ayaa ka faa'iidaystay systemkaas iyo nidaamkaas dadkii xoogga saaray wasiir Juxa ayaa udub dhaxaad u ahaa waana runtii waxa lagu xasuusanayo waana waxa keenay intaasoo arday iyo in ka badan oo adduunka daafiisa jooga inay ka faa'iidaysteen waxbarasho deeqa
sida Suudaan, Itoobiya, Masar, maxaan ku rajaynaa wadamo fara badan loo diray ilaa iyo 3,000 oo arday gaaraysa ayaa deeq waxbarasho helay oo ka faa'iideystay nidaamkaas ardaygaasi waxa uu u soo waxbaranaya waa dalkiisii isbedelka dalka iyo horumarkiisa waxa qayb ka qaadanaya waa bahda waxbaratay marka kasta oo ay waxbarashadu badato iyo inta aqoonta lihi mar kasta oo horumarka loo soo dhawaado waa sidii ardaygu uu sheegay runtii madaxda Soomaalidu way dadaaleen oo waxa weeye ardayda halkan caaw ka hadlayay oo aqoonta iyo aftahnimada aan ogeyn ku hadlayay madaxda Soomaalida tashtay meel mugdiyo looma dirin laakiin aqoon iyo horumar baa loo diray xadaarad bay soo faa'iideysteen laakiin hadday wax dhiman yihiin waxa la rabaa ardaydu inay faa'iideeyaan hadday wax dhiman yihiin inay ayagu raadsadaan hadday wax dareensan yihiin xaqa la isma siiyo dhalinyaradu way tadallucayaan wayna raadinayaan in ay decision makers noqdaan inay go'aanka wax ka qaataan inay manaasibta siyaasiga helaan ilaa madaxweyne inay noqdaan laakiin inad bilaash u siin maayo waa inaad raadisaa adoon violence samaynin dagaalamin laakiin hadlay oo maaragtay isku xirmay oo nidaam samaystay markaas ayaa waxa laga yaabaa inaad runtii meesha aad jeceshahay aad gaarto aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa wasiirka iyo tiimka cusub ee federaalka waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu xilkooda ku garab galo runtii fayl culus baa hor yaala ama amni ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto dadka Soomaalidu nolol buu u baahan yahay qof kasta oo Soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay nolol wuxuu u baahan yahay caafimaad wuxuu u baahan yahay waxbarasho wuxuu u baahan yahay biyo nadiif ah wuxuu u baahan yahay amni wuxuu u baahan yahay nolol buu rabaa qofka Soomaaliga taas ayaa laga rabaa dawlad kastaana inay ka shaqeyso sidii dadka Soomaalidu ay ku helayeen ugu dambeyntii warkayga waxaan kusoo gabagabeynayaa tiimka waa u ducaynay adiguna aad baad u mahadsantihiin waxaan rabaa in halkaa ka sii wadaan maaragtay isku xirnaanta iyo iska warhayntana aad xoojisaan saaxiibadiina kale iyo bulshada aad u timaadeenna aad ka qayb qaadataan sidii noloshooda wax looga bedeli lahaa macna keenin ma ardaygu intuu tago oo soo ciidaa ka batay ama intaasoo arday wax soo bartaan laakiin ay iska fiirsadaan noloshu sideedina iska ahaato haddii dadku liito haddii waxbarashadu xun tahay haddii noloshu xun tahay haddii nidaamku xun yahay dadka la raba inay wax ka bedelaan waa dadka soo noqdo wax soo bartay marka waa inaad ku dadaashaan isbedel inaad keentaan taasna waa rajaynayaa insha Allah taala aqliyada faraha badan ee ardaydu xambaarsantahay inay qayb ka noqdaan ugu dambeyntii xilli abaaraha lagu jira ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu abaarta dalka ka qaado ha loo gurmado dadka tabaalaysan ee dhibaatadu hayso xilliga abaartu waa culus tahay ilaahay aan u noqono waa law istaqaamu ala tariiqati la asqaynahum ma'an ghadaqan haddaan toosnaano ilaahay u noqono istighfar la nimaano rabbi u noqono tooba keeno ilaahay subxaanahu wa tacaala cirka iyo dhulkaba waa noo barakaynayaa abaarta allaha naga qaado khayr badanna allaha na siiyo dadka mas-uuliyiinta xilka loo magacaabayna waxaan leenahay guulaysta wasiirkana waxaan leenahay natiijadii xukun wanaagga fadradii aad haysay waad haysaa maantay waana rajaynaynaa fadrada dambana inaad ku guulaysan doonto hambalyaanu leenahay